guddiga doorashooyinka beelaha Banaadir ayaa qabtay doorashada shanta kursi ee muranka iyo cabashada ugu weyn ka jirtay maalmihii la soo dhaafay, taasoo sababtay in qaar ka mid ah xubnihii guddiga ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka uu iscasilo. xubnaha iscasile ayaa ku eedeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inay faragelin ku hayeen shaqada guddiga iyo sidii ay u soo saari lahaayeen musharaxiin ay gadaal ka riixayeen saaxiibada dhow ee ra'iisul wasaare Roble. inkastoo Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay guddi xaliya cabashada iyo khilaaf ka dhex jira beelaha Banaadir ayaa haddana muuqanin xal rasmi ah oo dhinacyada cabashada lagu xaliyay marka laga reebo in guddiga la magacaabay ay soo saareen warbixin ay ku sheegeen inay xaliyeen cabashadii taagneed. wasiir ka tirsan xukuumadda isla markaana u dhow ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka beelaha Banaadir oo garab ayaa si aad looga ceedeynayay inay faragelin gaartay meeshii ugu sareysay ku hayeen kuraasta beelaha Banaadir, taasoo ay ka biyadiideen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Banaadir oo sababtay inay qaadaceen habkii wax loo maamulayay. kuraasta beelaha Banaadir ee doorashadooda ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa kala ahaa kursiga ugu horeeyay oo sumadiisu tahay eber 34 waxaa ku soo baxay safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya Khadija Maxamed Al-Makhzumi oo ah xaaska madaxweynihii hore ee Galmudug haddana musharax madaxweyne, kaasoo la ogyahay inuu galaangal weyn ku lahaa sidii u soo bixi lahayd xaaskiisa, wuxuuna kursigan ka mid ahaa kuwa buuqa badan ka dhashay oo markii dambe uu xaliyay guddiga u magacaabay Roble. kursiga labaad oo sumadiisu tahay hoob 105 ayaa ku soo baxay Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Cadde oo ka mid ah dhalinyarada ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya, kana mid ah shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya. waxaa dhowrkii sano la soo dhaafay kursigan ku fadhiyay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka sagaalaad Jeylaan Nuur Iikar oo meesha laga saaray. kursiga saddexaad oo sumadiisu tahay 266 waxaa ku guuleystay gudoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne Cumar Shariif Maxamed Jeeg, kaasoo gadaal ay ka riixayeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyadoo baraha bulshada lagu arkayay cod laga faafiyay isagoo la hadlayo wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo si weyn lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa mas'uuliyiinta fargelinta ku hayay doorashada beelaha Banaadir. waxaa hore kursigaasi ugu fadhiyay Bibi Khaliif Maxamed. kursiga afraad oo sumadiisu tahay hoob eber 84 waxaa ku guuleystay taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Maxamuud Cabdulqaadir Xaaji Jeego. kursiga shanaad oo sumadiisu tahay hoob 265 oo midkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Nuur Abuukar. waxaa kursigan si weyn loogu saadaalinayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jaketi oo la aaminsan yahay inay dagaal ugu weyn kala kulantay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay waday oo ku aadan sidii ay u guuleysan lahayd kursigaasi. doorashada kuraasta Banaadir ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa gaartay meeshii ugu sareysay cabashadooda xilli qaar ka mid ah xubnihii guddiga iscasileen. ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo maamulayay doorashooyinka beelaha Banaadir iyo midda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa si aad loogu eedeynayay inuusan si sax u maamulin hanaanka loogu talagalay doorashooyinkaasi.